السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت المدي لون حريستو انت حنوسين الى عافية وح مراد له مراد خير له الى سي امين وحرار لو قضى بنا ين جارسيو من طريقة كوبيغان تهي سيدي بشكوات كنا فرقوا لفرت سيدي كوبيغان لغاتني أفرتي بشي لحد لو كن لغاتني لحدة لو قضب كواد وحكا هاد لايا هشيسكا توسكا إيران أو كورميركا نوغليركا iyo Iran ay sugaysa waqtiga ugu dambeysay la qaban lahaa iyo qodobka labaad oo Israa'iil oo ka fakiraysa inay ka baxdo koonfurta Lubnaan ayna diyaarisay ciidamo bedel laha oo Lubnaaniin ah oo si tartiib uga baxdo marka qodobka koowaad heshiiska Iran oo toos Grossi oo ka hadlay kormeerka Iran Trumpna sugaya waqtiga ku haboon sawirkan oo la qaaday 23 Juun 2026 kana soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa muujinaya madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian oo gacan qaaday ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif intii lagu jiray soo dhaweyntii rasmiga ahayd oo ka dhacday Islamabad maalintii toddobaad kadib saxiixa heshiiska afgaradka ah oo dhaxeeya Washington iyo Tehran 116 maalmood kadib markii dagaalka bilowmay khilaafka ka taagan kormeerka nuclearka waxa lagu la sheegayaa in kormeerka sidee loo kormeer lahaa oo ka taagan yahay in Iran ogolaatay in la kormeero laakiin waqtiga la kormeerayo in la xadido waxaas dhan waxaa soo baxaya kala duwanaansho u dhaxeeya Washington iyo Tehran oo ku saabsan natiijooyinka heshiiska hordhaca ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay ogolaatay in la sameeyo kormeer nuclear oo aan waqti xadid lahayn halka Tehran ay beenisay inay wax tanaasul cusub ka sameynayso arrintan markii Pakistan uu noqotay dhexdhexaadiyaha Islamabad iyadoo taageero firfircoon ka helayso dowladda Qatar ayaa ku guuleysatay inay fududeyso saxiixa heshiiska is-afgaradka Washington iyo Tehran 18 Juun isla markaana bilowmay wadaxaajood lagu xalinayo khilaafyada waaweyn ee weli taagan tani waxay dhalisay su'aalo ku saabsan sababta Pakistan ay si lama filaan ah ay uga soo baxday dhexdhexaadiyaha muhiim ah oo ku jiro khilaafaadka adag iyo waxyaabaha ka tirsan si ay ugu guuleysato doorkeeda Denmark oo ka qaybgeli doonta howlgalka furitaanka marinka Hormuz dowladda Denmark ayaa ku dhawaaqday inay ku biirayso howlgalka caalamiga ah ay ka hogaaminaysa furitaanka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska si loo xaqiijiyo xorriyadda marinka loona sugo amniga marinka Hormuz badda cas Denmark waxay howlgalka ku taageeri doontaa kooxo turjumaano ah oo turjumayo awoodda diyaarada aan qof wadin iyo ciidamo military khubarada amniga internetka cyber security qodobka koowaad ahaa qodobka labaadna Israa'iil oo ka fiirsanaysa ka bixitaanka qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan si loogu wareejiyo ciidamada Lubnaan ciidamada Israa'iil oo ku qororsan xadka Lubnaan ee waqooyiga Israa'iil talaabo Juun talaado oo Juun 2026 hay'adaha warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay isku diyaarinayaan inay ka baxaan qaybo ka tirsan koonfurta Lubnaan iyadoo halkaasi lagu bedeli doono ciidamada Lubnaan taasoo qayb ka ah tijaabo lagu qiimeynayo awoodda ciidanka Lubnaan ee ka hortagaya Hezbollah
ay dib u qabsan karto meelahaas. hay-adaha waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay qorsheynayaan ka bixitaan xadidan oo ku socda qaybo yar oo koonfurta Lubnaan ah, halkaasi oo ay ku wareejin doonaan cutubyo ka tirsan ciidamada Lubnaan. warar Israa'iil ayaa sheegaya sidoo kale tilmaamaya in ciidamada ku soo socdo dhamaystir tartiib ah, ciidamada ay ku socdaan tartiib ah inay u baxaan oo dhamaystir tartiib ah ee joogitaankooda dhulka koonfurta Lubnaan, kadib qiimeyn muujinaysa in inta badan howlgalladu weerarka la dhammaystiray, isla markaana cadaadiska Mareykanka u jiro si loo fududeeyo ciidanka Lubnaan oo halkaasi la wareego. sidoo kale wargeyska New York Times oo soo xiganaya sarkaal ayaa sheegay in hoggaanka militariga Israa'iil uu bixinaya awaamiro cusub oo xadidaysa howlgallada militariga ee Lubnaan inay noqdaan kuwa difaac oo keliya, halka warbaahinta Israa'iil ay sheegtay in la go'aamiyey in laga saaro cutubyada heeganka ee waqooyiga kadib xabad joojintii lala galay Lubnaan. dhanka kale, hay-adaha difaaca madaniga ee Lubnaan iyo warbaahinta rasmiga ayaa sheegtay in 2 qof lagu dilay koonfurta Lubnaan Talaadada, taas oo noqotay dilalkii ugu horreeyay ee ka dhaca halka 3 maalmood gudahood ee ay sababeen israsaasiinta iyo xabad joojinta. arrintani ayaa ku soo beegmaysa xabad joojinta jilicsan oo u dhaxaysa Israa'iil iyo Xisbullah, taasi oo ka dhalatay wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan iyo arrimaha kale oo gobolka xiriirka, gaar ahaan Lubnaan. cadaadiska gudaha ee Israa'iil ayaa sii kordhaya iyadoo tobanaan wiidan caruurtooda ka tirsan tobanaan waalidiin ah oo caruurtooda ka tirsan ciidamada Israa'iil ay ku sugan yihiin Lubnaan. wuxuu leeyahay waxaa jira waalidiin badan oo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo ay dal badan waxay leeyihiin intaasna ay dhib ku qabaan, ayna magaranaysaa wax natiijo wax hadaf cad aan lahayn, taasoo afjari karta dagaalka lana soo celiyo ciidankooda. wuxuu leeyahay war cad hala keeno, maxay ciidamada meesha u dagaalamayaan, ujeedadu maxay tahay? waxay warqadda degdeg ah u direen ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu, wasiirka difaaca Israa'iil Katz iyo taliyaha ciidanka Eyal Zamir. sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil, waalidiintu waxay ku adkeynayaan in aysan aqbali doonin in caruurtooda loo horo dano dibadeed, iyagoo sheegay in askartu gacmaha laga xiray ay jiraan saameyn dibadeed oo saameynaysa howlgalladooda. waxay sidoo kale dhaleeceeyeen in uusan jirin ujeeddo cad oo dagaalka Lubnaan laga leeyahay, iyagoo ka digaya in ciidanka lagu hayo xaalad aanan la go'aansan. waxayna dalbadeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ama la qeexo yoolalka cadcad. waxay tani timid kadib markii Mareykanka iyo Iiraan ay 18 Juun saxiixeen heshiis is-afgarad ah oo lagu joojinaya dagaalada dhinacyada kala duwan ay ku jiraan Lubnaan, iyadoo la adkeeyey in la ixtiraamo madax-bannaanida Lubnaan. Israa'iil waxay qaaday weeraro ka dhacay Lubnaan tan iyo 2 Maarso, kuwaasoo sababay dhimasho 4,175 qof iyo dhaawac
12,164 kale sida ay sheegtay xogaha Lubnaan. Israa'iil waxay weli qabsatay qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan waxayna gacanta ku haysay 10 sano halka ay sidoo kale ay gudubtay gudaha Lubnaan kadib in ka badan 10 kiiloomitir intii uu socday dagaalka. Netanyahu oo ka walaacsan doorka Suuriya ee Lubnaan. dhanka kale ammaanka kanaalka 12aad ee Israa'iil ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu uu qaban doono kulan looga hadlayo arrinta Suuriya iyo xiriirka ay la leedahay xaaladda Lubnaan kadib dadaalo ka yimid madaxweynaha Donald Trump oo sheegay in Suuriya laga yaabo in loo xil saaro la tacaalidda Xisbullah. Warbaahinta Israa'iil waxay sheegtay in arrintani ay walaac ka abuurtay gudaha Israa'iil iyadoo loo arkayo calaamado muujinaya qorshayaal dib u habeyn oo qarsoodi ah oo lagu shaqaysiinayo. waxaa rabay walaalayaal labada qodob degdeg ah in la soo gaaro wixii ku soo kordho qodobada kale ayaa in la wadaagi doonaa. waa in salaamaya hala taageero janalka lacagtii sheerka lacag ma aho waa samafal qasabna ma jiro. waa in salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.